injiilka sida Luukas u qoray cutubka 3 waxay ahayd sanadii 15 oo Tiberias Kaysar boqorana markii Pontius Pilatus xukumi jiray Yahuudiya oo Herodos taliye u ahaa Galili walaalkiis Filibusna taliye u ahaa Ituraya iyo dalkii Tarakhonitis oo Lusanias taliye u ahaa Abilene oo Anas iyo Kayafas wadaadadii sare ahaan jireen markaasaa hadalkii ilaa cidlada ugu yimid Yooxana ina Sakariyas wuxuu yimid webi Urdun hareerihiis oo dhan isagoo dadka ku wacdiyaya baabtiiskii toobadda dembi dhaafka aawadiis siday ugu qoran tahay kitaabkii hadallada nebi Isaayos waa codka kan cidlada kaga qaylinaya jidka rabbiga hagaajiya wadooyinkiisa toosiya dooxo walba waa la buuxin doonaa qar iyo buul walbana waa la hagaajin doonaa wixii qalloocnaa waa la toosin doonaa sidadka xunxunna waa la simi doonaa uunka oo dhammuna badbaadinta ilaah ayay arki doonaan haddaba wuxuu ku yidhi dadkii badnaa oo u soo baxay inuu baabtiiso iyaga dhal jilbisay yaa idinka digay inaad ka carartaan carrada imanaysa haddaba midho toobad istaahilaa soo bixiya hana bilaabina inaad isku tidhaahdaan waxaannu leenahay Ibraahim oo aabbe nooca waayo waxaan idinku leeyahay ilaah waa karaa inuu dhagaxyadan carruur uga kiciyo Ibraahim haddeer weliba faaska waxaa la dhigay geedaha guntooda sidaa darteed geed walba oo aan midho wanaagsan soo bixin waa la gooyaa oo dabka lagu tuuraa markaasaa dadkii badnaa weydiiyeen oo waxay ku yidhaahdeen haddaba maxaannu samaynaa kolkaasuu u jawaabay oo iyagii ku yidhi kii 2 khamiis qabaa ha siiyo kii aan waxba qabin kii cunto qabaana sidaas oo kale ha yeelo markaasaa waxaa u yimid cashuur qaadayaal in la baabtiiso waxayna ku yidhaahdeen macallimow annaguna maxaannu samaynaa isaguna wuxuu ku yidhi waxaa laydin amray wax ka badan ha qaadanina markaasaa askarna weydiisay oo ku tidhi annaguna maxaannu samaynaa wuxuu iyagii ku yidhi ninna ha dulminina oo ninna ha masabidina mushahaaradiinnana raalli ku ahaada intii dadku filanayeen oo kulligoodna qalbiyadooda kaga fikirayeen Yooxana inuu yahay masiixii iyo in kale ayaa Yooxana kulligood u jawaabay oo ku yidhi anigu waxaan idinku baabtiisayaa biyo laakiin waxaa imanayaa ku iga itaal weyn ka aanan istaahilin inaan yeelmihii kabihiisa furo isagu wuxuu idinku baabtiisi doonaa ruuxa quduuska iyo dab masaftiisu gacantiisay ku jirtaa inuu goobtiisa wax lagu tumo aad u safeeyo oo sarreenkana maqshinkiisa ku soo ururiyo laakiin buunshaha ayuu dab aan damayn ku gubi doonaa digniin badan oo kale ayuu dadka ku wacdiyey laakiin kolkuu taliye Herodos u canaantay walaalkiis Filibus naagtiisii Herodiya aawadeed iyo waxyaalaha xunxun oo Herodos sameeyey oo dhan aawadood ayaa Herodos waxaan oo dhan weliba ku daray inuu Yooxana ku xidho xabsigii markii dadkii oo dhan la baabtiisay waxaa dhacay in Ciisena la baabtiisay oo intuu tukanayay ayaa samadu furantay oo ruuxa quduuska ayaa dushiisa ku soo degay isagoo muuqasho jidhle oo qooley u eg waxaana samada ka yimid cod leh adigu waxaad tahay wiilkayga aan jecelahay oo waan kugu faraxsanahay oo Ciise markuu bilaabay inuu wax baro wuxuu ahaa qiyaas 30 jir isagoo ahaa sida loo moodayay ina Yuusuf kan ahaa ina Heli kan ahaa ina Mataad kan ahaa ina Laawi kan ahaa ina Malki kan ahaa ina Yaana kan ahaa ina Yuusuf kan ahaa ina Mataatiyas kan ahaa ina Caamos kan ahaa ina Naum kan ahaa ina Esli kan ahaa ina Nagay kan ahaa ina Maat kan ahaa ina Mataatiyas kan ahaa ina Semey kan ahaa ina Yuusuf kan ahaa ina Yuuda kan ahaa ina Yoana kan ahaa ina Reesa kan ahaa ina Zerubaabel kan ahaa ina Zalatiel kan ahaa ina Neeri kan ahaa ina Malki kan ahaa ina Aadi
kan ahaa ina koosam, kan ahaa ina elmoodam, kan ahaa ina ceer, kan ahaa ina yooses, kan ahaa ina eliicazar, kan ahaa ina yoorim, kan ahaa ina mataat, kan ahaa ina laawi, kan ahaa ina simcoon, kan ahaa ina yuuda, kan ahaa ina yuusuf, kan ahaa ina yoonam, kan ahaa ina eliyaqiim, kan ahaa ina male'as, kan ahaa ina meena, kan ahaa ina mataata, kan ahaa ina nataan, kan ahaa ina daawud, kan ahaa ina yesaay, kan ahaa ina coobeed, kan ahaa ina bo'aas, kan ahaa ina zalmoon, kan ahaa ina naazoon, kan ahaa ina caminadaab, kan ahaa ina araam, kan ahaa ina esroon, kan ahaa ina feres, kan ahaa ina yuhuuda, kan ahaa ina yacquub, kan ahaa ina isxaaq, kan ahaa ina ibraahim, kan ahaa ina taara, kan ahaa ina naakoor, kan ahaa ina saruuq, kan ahaa ina ragaw, kan ahaa ina valek, kan ahaa ina heber, kan ahaa ina saalah, kan ahaa ina qaynaan, kan ahaa ina arfaksad, kan ahaa ina sheem, kan ahaa ina nuux, kan ahaa ina laameeg, kan ahaa ina matusalah, kan ahaa ina enook, kan ahaa ina yaared, kan ahaa ina mahalaleel, kan ahaa ina qaynaan, kan ahaa ina enos, kan ahaa ina zeet, kan ahaa ina aadan, kan ahaa ina ilaah.